Si uu timihiisu u koraan, wiil ayaa samaystay kareem uu isagu gacantiisa ku sameeyey. Si uu u noqdo mid isku dheggan, wuxuu ku daray subag lows ah, peanut butter. Markuu isku qasidkiisa hagaajiyey, wuu marsaday kareemkii madaxiisa. Kadibna wuu dhaqay kareemkii xumboobay. Maalintii xigtay, saaxiibkii ayaa arkay wax aan caadi ahayn oo ka muuqda madaxiisa. Markay muraayad weyn ku eegeen, waxay arkeen timo cusub oo ka baxaya madaxiisa. Wiilkii aad buu u farxay, kareemkiisii wuu shaqeeyey. wax yar kadib timihiisu si degdeg ah bay u dheereeyeen, taas oo aabbihiis aad u farxad gelisay. Qof walba oo arkay wuxuu u riyaaqay sida timuhu ugu soo baxayeen. Laakiin markuu mar kale isfiiriyey muraayadda, wuxuu arkay in timihiisu sii dheeraadeen. Xaaladdu way ka sii dartay. Markuu dugsiga tegey, fasalkiisii waxay u maleeyeen inuu xiran yahay timo been ah. Mid baa yidhi, maya, ma arkaysaa madaxiisa hoostiisa, waa run. Mid kalena yidhi, ilaahow, timaha aabbihiis buu leeyahay. Markay fasalka joogeen, timihiisu waxay bilaabeen inay koraan si indhaha lagu arki karo. Waxayna arkeen dhammaan ardayda iyo xitaa macallinka. Saaxiibkii ayaa qasab ku noqday inuu maqas ku jaro timihiisa si uu u caawiyo. Markuu guriga tegey, timuhu wejigiisa ayay gebi ahaanba qariyeen, xitaa cunistii way ku adkaatay. Maalmaha oo socda, timihiisu waxay sii dheeraayeen ilaa ay hurdadii dhibaato ku noqotay. Wuxuu qasbanaa inuu timaha kor ugu xidho oo uu sariirta fadhiyo si uu u seexdo. Subax kasta, waalidkiis waxay bilaabi jireen inay ka shaqeeyaan timaha wiilkooda. Timahaasi waxay kaloo keeneen madax xanuun daran. Mar kasta oo dabayl xoog leh dhacdana, timihiisu waxay galeen duurka. Si uu dhibka u xaliyo, wiilkii wuxuu u tegey warshad samaysa timo been ah. Wuxuuna bilaabay inuu timihiisa u iibiyo sida agab warshadeed maalin kasta. 2 bilood kadib, timihiisu ugu dambayn way joojiyeen inay sii koraan. Laakiin wakhtigaas, wiilkii wuxuu noqday hodan sababta timihiisa darteed.